صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، كسو دوادا برنامج كيني داودا رمضانك والداو، رمضانك واللك عبسي، رمضانك والداعد نمو، رمضانك وحو داو يهي مسكحة إيمانك بلشدة qoyska ayuu daawo u yahay. ramadaanku waa bishii dacwada, waa bishii Allah subxaanahu wa tacaala diintiisana uu gargaaray, waa bisha dadka muslimiinta ay hormaraan, waa bisha shayaadiinta la xirxiro, malaa'igtana la soo daayo. xalqadani ayuha alaxibatu fillaah waa xalqadii 14 weeye. waxaana ku eegi doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala alcumratu fi ramadaan. sida aad la wada socotaan, dad aada u fara badan ayaa ramadaanka uga faa'iideysta inay booqdaan beytka ilaahay ee qiimaha badan, albeyt alcatiiq iyo albalad alxaraam, inay booqdaan. cumrada iyada ah allah subxaanahu wa tacaala iyo gurigiisa oo la booqdo daraaddii oo loo cumraysto, weliba fii ramadaana, bishan ramadaanka waxyaabaha ilaahay uu ku karaameeyey bay ka mid tahay. bishan ramadaanka cibaadaad fara badan, soon iyo salaad iyo qiyaam iyo zako iyo nafaqo, ixsaan, sabr iyo dulqaad, mahadcelin, dikri, tilaawat lqur'aan ayuu alla subxaanahu wa tacaala ku gaar yeelay, ama uu alla subxaanahu wa tacaala qofkii la yimaado fadli fara badan uu ku siinayaa. manaasigta sida cumrada iyo xajkana sidoo kale, xilligii xajka inkastoo ramadaan aysan ahayn, haddana in la cumraysto oo cumradaas iyada ah bishan aadka u qiimaha badan, cumradaasi la cumraysanayo wuxuu nabigu noo sheegay inay u dhiganto xaj lala soo xajiyey nabigii sala allahu calayhi wasalam. waxaa nabiga ka asaxay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in ay gabdhihii ansaarta gabarh ka mid ah inay nabiga sala allahu calayhi wasalam u ashtakootay, iyadoo ka ashtakoonaysa inuu xajkii sanadkan uu ka tegay. nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam gabadhaas, idaa kaana ramadaanu ictamirii fiihi, ramadaan markuu yimaado cumrayso, fa ina cumrata ramadaana tacdilu xajatan, wa fii lafdin tucadilu xajatan macii. waxaa weeye ramadaanka cumradiisu xaj bay u dhigantaa. riwaayaadka qaarna waxaa weeye waxaa soo arooray inuu nabigu yidhi xaj aniga la ila soo xajiyey ayay la mid tahay. alimaamu alghazaliy calayhi raxmat ullaahi waxa uu leeyahay, xadiidu lcumrati saxiixun wa huwa fadlu min allahi wa nicmatun, waana fadli iyo nicmo min allahi tabaaraka wa tacaala. waxaa kale oo uu raaciyey, cumradu martabadii ay lahayd iyo maqaamkii ay lahayd way ka kor noqotay, xaj bayna la mid noqotay. sababkuna waa maxay? cumradii waxaa weeye ramadaanka ayaa darajadaas siiyey. ibnuljawsiyi raximah llahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay, fiihi ana thawaaba alcamali yaziidu biziyaadati sharafi lwaqti. camalka ajarkiisa iyo thawaabkiisu wuxuu kordhaa xilliga aad camalka isaga ku samaysay. labada ragcadood ku tukatay meesha aad joogto iyo labada ragcadood xaramka ku tukatay isku ajar iyo isku thawaab ma aha. wahaakadaa sidoo kale madiine waxaad ku samaysay iyo meelaha kale waxaad ku samaysayna isku mid ma aha. cumrada marka
في رمضان لعمريستو وحاوي قدر إيا شرف أن لسو كوبي كرين شرف أن لسو كوبي كرين إيا قيمة أن لقياسي كرين أي الله سبحانه وتعالى أكتيسا أي كلا هذا إلى النبي يري صلى الله عليه وسلم وحي أودي كنتا حج أنا قال إلى سو حجية أو كلا أي أودي كنتا مركا عمرتي مركي لعمريستو إن قفكي وحوهلا يا إن أنتو كتغ الشقديسي reerkiisii uu ka tago uu ilaahay cibaadadiisa uu u firaaqan noqdo uu khalwo galo uu tilaawada ku dadaalo uu salaada badiyo uu tawaafka badiyo uu dikriga ilaahay iyo ducada uu badiyo inuu soo booqdo xaramka ilaahay kacbada inuu tawaafo inuu soo booqdo alxaram annabawi iyo almadiina almunawwara inuu soo booqdo ayaa ka dhalanaysa safarka uu gelayo oo dhan waa dacwo acmaasha uu samaynayo oo dhanna waa acmaal mubaaraka marka cumrada oo ramadaanka dhexdiisa la cumraysto qiimahaas ayay leedahay waxay kaloo soo gudagelaysaa baabka isna infaaqa fi sabiilillah ilaahay dartii oo wax loo bixiyo qiimaha iyadana ay leedahay marka ay fi ramadaan noqotana iyadana way ka sii qiimo badan tahay dadka masaakiinta oo la quudiyo dadka masaakiinta ah oo lala soomo lala cumraysto arrimahooda la hagaajiyo arrimahooda la hagaajiyo laga soo baxo waxaasoo dhan waxaa weeye fadli min allahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu na waafajiyo acmaasha saalixaadka ah iyo qurubaadka ilaahay oo dhan cumradu marka inkastoy ka mid tahay mustaxabaadka soonka haddanana waa camal weyn iyo beytka ilaahay oo la booqanayo ilaahay dartiisa loo safrayo labbayk allaahumma labbayk laleeyahay fii ramadaana marka ay tahayna sidaasay sharaf iyo qiimo ay ku yeelatay ee ha lagu dadaalo in sha allahu tabaaraka wa tacaala ayuha alaxibatu fillah xalqadii 14aadna intaasi ayay ku gabagabowday inta aynu ka gaadhi doonaa ama ilaahay naga gaadhsiinayo xalqada 15aad waxaan idin leeyahay astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام